xildhibaanada saxaafadda inta waan salaamaya hawlaha inoo yaalla aad bay u badan yihiin marka dib loogu soo noqdo topigan inoo yaalla imika ilaa shalay laga doodayay ee ah xaaladda dalku marka runta laga hadlo meel adag bay maraysaa ha yeeshee waxay ka mid tahay dee waxaa jira wax nolosha iyo dowladnimada iyo waxa la doonayo markay ku xidhan tahay waxay ku xidhan in adag loo maro wixii loo mariyay bay ku xidhan tahay ma aha wax dheeraada oo la leeyahay meel bay ka yimaadeen ee waa hawl socota waxa laga wada hadlayana waa xalkeedii iyo sidii xal loogu heli lahaa in la isweydiiyo mid gola ku jira iyo mid dowladda ku jira iyo fulinta iyo mid garsoor ahba iyo shacib weynaha bay lagala tashaday iyo waxgaradka waxa aynu u hadlayna waxa weeye in xal loo helo problemska ay naga horyimay nafisgariyey problemska haddeer ugu badani waa problem siyaasadeed oo naga haysta number one koonfur oo maalintii horena anigu sheegay aan lahaa war xadka xamar ayuu inoo imanin laascaanood iyo burco hadduu puntland gaariyo inoo soo gaarin burco iyo laascaanood waxaad moodaa inuu soo durkayo problemkii xamar naga imanaya wuxuu u baahan yahay in gacmaha la isqabsado in la iska muuqso daadka iyada oo wanaagga laga wada raacayo wixii xunna la wada hagaajinayo haddii cid wax tabanayso iyo haddii kaleba in la wada hagaajiyo ta kale waxaad moodaa wax islaamaan baa wanaagsan iminka xisbiyadii markii ay doorashadii la galay xanafo way timi waxaad moodaa kii dhacay iyo kii helay inaan islaamin oo waa in la islaamaadaa la kala roonaadaa oo kawa helay wax dhayaa halka mushkiladdu ka taagantahay ugu badanana waa halkaa haddii kan aan daba jabsado anigu kuwa xeleelama ku jiraaye de way sii fogaanaysaa wixii baa sii fogaanaya waa in la soo qabto dabada la soo qabta iyay sidii odaygii inuu yuusuf la oran jiray berigii maxamed siyaad ku yidhi markuu dowladdii sii dhacayso baan dabada soo qabanay buu yidhi kuu go'day markaasay kuu go'day yay noo go'ay iyo dabadii noo go'ay inaan soo qabanno taasna intaasa kaga hadhaya xaaladda dalku waxay u baahan tahay in hoos loo eego waxay u baahan tahay in laga feejignaado gaar ahaan gobollada barigu iminka marxaladdooda waxaad moodaa inay soo jeesteen haddii ay sidan kusii socdaanna waxaad moodaa in wejigoodu isbeddelayo aad bay ugu baahan tahay xaaladda gobollada bari in hoos loo eego waan ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu